babaday sidaan ahayn dhallaan kama xiisa dhici karo dheehiisa quruxdana marka aan dhugtaaba dhafoorkii ishiitiyo dhibaatadii ilaaba dhalaal qurux sameeya dhaxantii idaysa dhacdiid u seexda farxad dool caddeeya qaalmahaan dhaqdeen u soo dhacartay ee dhiibiyey candhada goortay dhaleen dhiilkaanu culay anoon dhay ku shubin durwaa inaan u xidho oo waxaan dhici karin dheehooda quruxdane marka aan dhugtaabaa dhafoorkii ijiitiyo dhibaatadii ilaaba dhacdiid u seexda farxad dool caddeeya halkaa markan intaa idhaahdo waxaa jirta sheeko yar oo dhacday ama aan doonaya halkan aan ka sheekeeyo waxaa jiray inan maanta dadoodu tahay 25 jir ayaa markii ay caloosh hooyadad ku jireen ayaa labadoodii waalid isla jeclaadeen oo yidhaahdeen haddii ilmahaan caloosha ku sida uu ina noqdo mid ka mid ah tidhi kayguna uu ina noqdo aynu susina labadii carruura waxay dhasheen isku 7 gudihii wiil iyo gabar bay noqdeen inantii waxaa loo bixiyey dhudi inankiina waxaa loo bixiyey dhuugow dhudi way taaba gashay waxbay baratay waxay diyaarisay shahaadooyin tii ugu dambaysay ay soo qaatay sanadkan aynu ku jirro horraantiisii oo caafimaadka oo ay ku takhasustay beerka iyo wadnaha dhuugow waa 25 jir ilaa imaka xuduntii umay qallalin waayo carruurtu markay dhalato xudun bay ku soo dhalataa dabeetana xuduntii ilaa maanta umay qallalin waxa keliya uu ka tabagalay ilkaha oo 30 kiilib bay u dhan yihiin oo waxuu cunaa waxna uu cabbaa ilaa imakana wuxuu jecel yahay inantii dhudi in loo dhiso dhowrkii sanaba mar buu hadlaa uu yidhahdaa inantaa ayaan laga guursani wuu u fadhiyaa waa la baaray inanka caafimaadkiisa wax xanuuna waa laga waayey markii xanuun laga waayay hooyadii mashxaraday waxaa la yidhi maxaad ku mashxaradaysaa waxaa ku mashxaradayaba tidinkaygii baa laga waayay xanuun inanta jaarkii inankan yar jaarkiisii ayaa waxay leeyihin inankeenu haddii uu caafimaad qabo maxay xudunta ugu qallali weydeen oo ugu weynaan waayey oo xoolka uga soo dhex bixi waayey mar kale faarisaa timi waxay tidhi inanka dawadiisa baan hayaa maxaa u dawaadaa la yidhi waxay tidhi waxaa u dawaa diin dhaqayaa labadiisa dambeed caano laga lisay iyo abeeso curatay dambarkeeda labadaa in laysku daro marka uu cabbadatana u bogsayo hooyadii baa mashxaraday maxaad ku mashxaraday baa la yidhi waxaa tidhi inankeena dawadiisa baa la helay islaan horeeraa tidhi dawadiisii waa la waayey waayo abeeso iyo diinku naasa male sidaas inankeenu ku dawan waayo dabeetana inankaas waxaa la yidhahdaa dhuugow waa inankii dhashee dhabta lagu qabtee naaska dhaadhiyee duunta lagu hayee suba lagu dhuree dhayl lagu habee dhowr iyo 20 sanaa dhabar buuxiis noqon isagaba dhigii dhoofkay tageen daaray dhisteen xoolay dhaqdeen qaar way dhinteen qaar dhamac gabadha xushay sitaan qaar dhiirada waa askari dhabool dhoobirkay sitaan dhaxal adoo ka qadeen isaguna dhabtuu ka dhex ooyaya dhawaaq iyo cod iyo dhuuntuu leeyahay dheegoo mu weyn dhudhumadii iyo jirkiiyo dhabartiisa eeg xalay buu dhashee dhudi buu rabaa in loo dhisee miyay dhici kartaa reer ma dhaqi karaa wax ma dhali karaa dhakhtarrada waxbaanaa dheecaan ka qaadoo dhiiggiisa eego dheefshiidka beerkiyo dhanxarag iyo qanjaha iyo sambabada dhegaysto dhabtii waxay caddeeyeen wax dhiba qabin macnaha ninkaasi ma buko inan buu inaga doonayaa waxay noqonaysaa haddii la turjumo soomaaliya ayaa noocaasa somalilanna way taaba gashay ma dhici karto markaa ninkaas xoolka ku jira inuu uli guursado wax dhici kara maaha halkan waxaan doonayaa inaan si gaara anugu dadweynaha reer Beledweyne waan salaamaya dhammaan waxaa kaloo u yarayaa hees aan doonaya insha allahu tacaala inuu fanaanka weyn ee layl inoo qaadi doono wixii kharash ku baxayana ay degmadu qasab inay bixiso ay tahay oo odhanaysa boqolaal carruuraa ka bogay qur-aanko barakadii rasuulkaa balligubadla taalle faydbayni maayo hadalaa bannaanayn been sheegi maaye waxaa tahay wadnaha bidix bartii laga halgamayey guda aragga wiilkiiyo bixiyihii dalkaa tee balligubadla noolow dooni laguma quuto bahdiinibaa wax tarin iyo bakayl kuma abuurnoo baktiguna ma jooge bayrbayro fulayo nin baqdaa kamuu dhalan balaayada markay tahay boqolaha ku dhuuntee bartii laga halgamayey guda aragga wiilkiiyo bixiyihii dalkaa tee balligubadla noolow
waxaan doonaya halkan inaan ku soo gabagabeeyo salaan aan u dirayo mujaahidiintii SNM guud ahaan gaar ahaanna kuwii gobolka